Soomaaliya waxaa ka jirta abaar baahsan oo saamaysay ku dhawaad 7 milyan oo qof. Abaarta ayaa ku dhawaad 1 milyan oo qof ka barakicisay deegaanadoodii. Ku dhawaad 1 milyan iyo bar carruur ah ayay haysataa nafaqa darro iyo shuban biyood. Dadka Soomaaliyeed oo u badan xoolo dhaqato iyo beeraley ayay abaartani ka idlaysay in ka badan 17 milyan oo neef. xaaladda guud ee abaaraha ka jira dalka ayaa xog ururin ay sameeyeen guddiga abaaruhu waxa ay dowlad goboleedyada u kala saameeyeen sida tan. Jubbaland ku dhawaad 2 milyan, Koonfur Galbeed in ka badan 1 milyan iyo bar, Hirshabeelle ku dhawaad 1 milyan, Puntland in ka badan 1 milyan, Galmudug in ka badan 1 milyan, Somaliland in ku dhow 200 oo kun, Banaadir ku dhawaad 150 kun. Xukuumadda dan qaran uu hogaamiyay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo la koosatay xaaladahan adag ee abaaraha ka jira dalka ayaa isla markiiba qaaday tallaabooyin muhiim u ah la tacaalidda iyo samata bixinta dadka Soomaaliyeed ee abaartu saamaysay. 17kii bishii Agoosto, Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa isugu yimid kulan aan caadi ahayn taas oo lagu go'aamiyay dib u howlgelinta hay'adda maareynta musiibooyinka. halka Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre uu magacaabay guddiga gurmadka abaaraha oo ka kooban 16 xubnood oo isugu jira wasiiro, xubno ka socda ururada bulshada rayidka, culimada Soomaaliyeed. si looga howlgalo la tacaalida abaaraha waxaana la go'aamiyay arrimaha soo socda. waxaa la ansixiyay dib u howlgelinta hay'adda maareynta musiibooyinka Soomaaliyeed. waxaa la ansixiyay maamulkii hay'addaas. hay'adda maareynta iyo musiibooyinka waa hay'ad sharci ah oo u xil saaran fulinta gurmadka abaaraha. waxaan magacaabay guddi qaran oo ka kooban wasiiro xukuumadda ka tirsan, culimada Soomaaliyeed, rugta ganacsiga iyo bulshada rayidka. guddigaas waxay u xil saaran yihiin jihaynta iyo taabagelinta iyo taageeridda howlaha gurmadka abaaraha. 22kii bishii Agoosto, Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa kulan la qaatay maamulayaasha warbaahinta gaarka loo leeyahay oo uu kala hadlay doorka ay ka qaadan karaan howlaha gurmadka abaaraha iyo wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed. doorka aad ka qaadan kartaan ee hogaamineed ee ku wajahan arrimaha abaaraha. dadkii Soomaaliyeed ee annana aanu madaxda u ahayn dawladda aanu hoggaankeeda haynay idinna aad madax u ahaydeen oo aad warbaahinta madaxda ka ahaydeen ee ay ahayd labadeenaba inaynu adeegno naftoodii iyo maalkoodiiba halis ku jira inaynu iskaashanno oo culimada kaashanno oo ganacsatada kaashanno oo u gurmanno ayaa waajiba. 23kii Agoosto waxaa loo diray deeq raashin ah oo dhan 26 tan oo cunto ah magaalooyinka Beledweyne iyo Puulo Burde. 25kii bishii Agoosto, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ayaa safarkii ugu horeeyay ku tegay magaalada Beledweyne si uu ugu kurgalo xaaladda abaaraha iyo saameynta ay reebtay, isagoo booqday xerooyinka ay ku jiraan dadkii ka soo barakacay deegaanada miyiga ah abaarta darteed. Agoosto 25keeda, Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka duulaya baahida bulshada ayaa bixiyay lacag dhan 75 kun oo dollarka Mareykanka oo lagu talagalay in lagu dayactiro ceelbiyoodyada degmada Maxaas oo lagu wareejiyay mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle. 4 Sebtembar waxaa deeq raashin oo dhan 20 tan oo cunno ah loo diray magaalooyinka Baydhabo iyo Xudur. 6 Sebtembar, Wasiirka Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Axmed Macalin Fiqi ayaa tilmaamay in xukuumadda dan qaran ay si weyn uga shaqeynayso sidii dadka Soomaaliyeed looga badbaadin lahaa saameynta abaaraha. dowladda federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an howlaha xoojinta iyo dardargelinta dadaalada gurmadka abaaraha si loo samata bixiyo bulshada Soomaaliyeed ee la ildaran masiibada abaarta. dowladda federaalka Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed, saaxiibada Soomaaliya
beesha caalamka iyo deeqbixiyaasha in loo kaco sidii loogu gurman lahaa bulshada ku tabaalaysan saamaynta abaaraha loogana hortegi lahaa in xaaladda bini'aadamnimo ay ka sii darto. Sebtembar 11keedii magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay shirka golaha wadatashiga qaran oo lagu gorfeeyay sidii loo xoojin lahaa gurmadka abaaraha. 12 Sebtembar golaha wadatashiga qaran oo ay ku midaysan yihiin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa laga soo saaray baaq xooggan oo lagu dardargelinayo gurmadka abaaraha. maanta waxaan joognaa heer ay mudan tahay in si gaar ah taxadar loo siiyo abaartu sidii hore ka duwan oo ah deegaanada qaar iyo dalka meelo ka mid ah ay abaartii inay macaluul u gudubto oo dadkii xoolihii macaluulay dhammaaday inay hadda macaluul u gudubtay ku sii socotaa. dadaalka hadda socda ee dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaantoodba ay u midaysan wuxuu yahay sidii loo hor istaagi lahaa in macaluul ay gaarto. sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadba waxaan ugu baaqaynaa mar kale walaalayaal dadaalkaasi aan sii kordhinno si aanay dadkeennu u gaarin stagekaas ama heerkaas macaluusha ah dad badan ay nooga dhiman karaan.